maxamed waxaa aad u xiisa leh in doodahaagu ay toos uga horjeedaan ay challenge garaynayaan sida wax u yaalaan constituency-gaaga tabashooyin iyo saluug qaabka wax loo qaybsaday ka mida ayaa muddo dheer oo taxanayd ka soo yeedhaysay adigu ma aaminsan tahay in constituency-gaaga iyo dadka aad matashid wax kaga maqan yihiin qaybsiga awoodaha iyo horumarka ee Somaliland intii aan hore u sheegay dadka la qabaan biyo la'aanta haraadka waxbarasho la'aanta waxa soo la qabaan constituency-ga ka yimid ha طبعا وانا aaminsan inuu wax ka maqan yihiin waana toddobaad dood weyn ee ka taaganta inuu aragtidooda dalka kuraasida go'aanada laga gaaro ma joogantay waa ku xigeen noo taqaan ku xigeen go'aan waxba kuma leeyahay markuu boos ka sareeyo joogada isagoo ma hadlate shirkadaada dhe beertaada dhe qoyskaaga dhe dukaankaaga dhe qof kasta oo qofka executive-ka ama power-ka la ku xigayday intuu qofkaas joogo waxba kuma leh waxaan aaminsanahay aan dadkaan matalo inay dad wanaagsan yihiin oo dadka Soomaalida ugu akhlaaqda roon leeyihiin Somaliland sababtoo markii ay Somaliland infof ka hayne baahida dhabti qabatay gobolada kale Somaliland dadkii kala saaray weeyaan xikmad iyo aqoon iyo garasho iyo daacadnimo kala saaray saddexda arrimood bay leeyihiin aqoon xikmad iyo garasho laakiin waxay ku dhex baabeen oo ay ku dhex milmeen oo fashaaro gareeyadii qablanimada iyo qabyaalada iyo xumaanta ay fashaaro gareeyay markastoo taas sareysay iyagu hooseynayaan sidaa darteed waxaan u doodanay leeyahay waxa la wada yeesho wax wada la yeeshadu ma hayna cadow ku nahay inaan colaad ku nahay inaan diidanay dadka walaalahay wax wada leenahay laakiin markay intay xaq u lahaayeen maamulka ay galaan ay gaarsiiyaan ay go'aanada gaaraan Somaliland baa hagaagaysa waxaan aaminsanahay aragtidii wanaagsaneed ee shalay walaalaha iyagu kala badbaadiyeen innagana inuu kala badbaadiyeen dadka oo kala badbaadiyeen tulamayd inaan hayno u nibgeelino haddii dadkan ay qancaan oo ku faraxsanaadaan oo waxay doonayaan oo dhaba ay xaq u leeyihiin helaan taasina waxa weeyaan dalka saddex wasiiro saddex bacaan iyo madaxweyne ku xigeen saddexda janan tusaale xusinaya jananka militariga booliska iyo ay jeeshalada ka xabsiga ilaaliyay haystaan reewada keep guard hay وانا نحرق على بس كفر الباب كعلي كف وبقف بخار جوجون بخار وحلقوا يبيني له ستور ويستور كبر مس عنا يسطا سنتين ويقدر كنا بتقلي ده هو بوليس كم اللي تريجا سلطانك وحلا جاري هرلا يلا لقوا أمين ما يقدر كان كم دانو يعني مركز عندكم فرنش بنا من الناس ومن لا ترين ما نضل أركتي ضلك ودتني أنا وأركتي ده أنت مقنتي وين وأنت تلا ده مقنتي بوليسكو دلدلان يو حمانيا انتو dadka saxdi ka maqeen hoosta joogan sideed u aragtaa in loo sixi karo waa in la wada fariisto oo dab loo wada hadlo oo la sugin inta ay ka imanayso qaraxyada iyo xumaanaha iyo xabadaha iyo dagaalada inta ka imanayaan in la sugin weeyaan waa la gaajisto intuu qarax u dhacayo qarax un bay sugta Soomaalidu maxaa la filan karaa haddii saluuga reer awdal ka qabaan qaybinta awoodaha dawladda xal loo heli waayo waa caddahay dad kasta oo isqancin waaye oo isxaq siin waaye oo isdhegeysan waaye dawladday doontaha haato dalkay doontaha haatee way dumeen way burbureen waxaan ka cararaya aan la xanaaqsan ra'yigaygu la adag yahay aan la jibaysanen la khatartaas yaan arkayo ka baqayo islee dadka ugu yeeni gaarin dadkaygu maaha dadka wada loo keliya oo dadka degan Burco Gabiley Hargeysa waa dadka la saarado wax ka dhaxay shan sanadood buu Cali Khaliif Kaleer wax kasta nagu hadlayo war walaalayaal isma muqoonin karno war walaalayaal waxaan leena wada xisaabsano war dastuurka aan furno war tashan dhigta jira loo mas'uul ka hadlay miskiinka dhulfaantay illa ragga dalka xukuumadda qaarkood ay abiyashi soo wareystayeen halkan marinay kibriya fatabakh qaraxi ka dhacay dawa keenay inaad la kala go'o maanta oo ninkii karta lahaa uu guuleysto way garbay lahayn reer lascanood وروح وضع يلنا الهاين ولا ديدي إلهي بقرتيسي يوم المشهد العظيم مع العبد ولا قرتيسي وشان لا تواصل أنا معاهم صحابي أنا مصاب استعاد كان دونا مقرنيه وحنا أمسنا هنا ضد بضني وجوجو مدحة ما شعب كان ما هذا الشعب هو ضد ونكسوين ونصبوا ويانو وناك دوني نمان ودك حكومي
ور إلهي بيقول فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار فانظروا إيه قال لي dhegeysta leeyahay maqla leeyahay arka leeyahay in arkaan baan doonayo dhegeystaan oo ku cibra qaataan insha Allah saanad ka dhacay oo boormana laga sugin taas kala timaado oo inuu wada fadhiisano inuu isqancin rabnaa dee siyaasiyiinta Somaliland ku matala constituency-gaaga marar badan waxaa masraxyada iyo saxaafadda laga arkaa iyagoo qaarkood soo dhigaya doodtaada ka horjeeda oo odhanaysa inaanay waxba ka maqnayn deegaankaad matasho ra'yiga ma la qabtaa waa qof naftiisa kaliya la sheekaysta weeyaan dadka awdal ka soo jeeda meel kastoo joogaan North America Somaliland Ethiopia meel kastoo joogan way sheekada way amsay dadna kartar isku mid raacaan nabiga kaleey salaam qoomna isku mid raacaan wax faatina haddayna waxba maqnayn dadkaas oo dhan ma yiraahdeen laakiin nin kursi yar wasiir ku fadhiya siraada marka qaar kursiga wasiirka ku xajiso kuwaasina dadka ma matalaantay dadka ma matalaan qaarkood baa u haysta waddanka jooga inaa wax lagu noqonayo in qayrkood maartay oo daalimiina maaha haddaad nin wanaagsan oo sharaf leh oo cadaalad sameynaya oo ummadda u shaqeynaya aad ilaalinayso oo u doodayso oo difaacayso raganimo fakaanama waxaad galaysaa markaa nin cadaalad u taagan markaad garab joogto booska Abu Bakar iyo Umar iyo ku jireen baa taaganta xaq baad difaacaysaa laakiin daalin waliba mid daalina ma ogtay difaacayo gulwadaynaya ka war dhibaatadii leedahay markaa ma soconayso qaar hore aaminsanaa kuwa kale aaminsan dadkanina maad aragtay way tooseen waana say u tooseen heestii xas sheekh muumin dadkan soo baraarugay badow yahuudi ba u cilmayn dadka lama celin karayo kaliya waxa uu taagan xaq ogeyn helaan